ugu dambeyn caawa waxaa la soo bandhigayaa iPhone 16 caawa waxaa jira kulankii weynaa ee dad fara badan oo dunida daafaheeda ku nool ay shirkadda Apple sanadkiiba mar ka sugi jireen. waa kulankii iPhone-ka cusub ee sanadkaas lagu soo bandhigi jiray. marka su'aalaha la isweydiinaya waxaa weeye iPhone 16 muxuu kaga duwanaan doonaa iPhone-nadii ka horreeyay sida iPhone 15 iyo iPhone 14 iyo iPhone 13 ba. kalariskee ayuu ku imaan doonaa iPhone 16 sidoo kale qiimihiisu meeqa ayuu ka bilaaban doonaa. shirkadda Apple caawa waxay soo bandhigaysaa afar nooc oo iPhone 16 kala ah. waa iPhone 16, iPhone 16 Plus iyo iPhone 16 Pro iyo iPhone 16 Pro Max. shirkaddu waxay sheegtay inuu kalariskan ay ku imaan doonaan iPhone 16 marka muxuu kaga duwanaan doonaa iPhone-nadii hore. waxyaalaha uu kaga duwanaan doono waxaa ka mid ah in iPhone 16 oo ku shaqeynaya iOS 18 aad awood u leedahay inaad indhahaaga ku maamusho halkii aad gacmaha ku maamuli lahayd. sidoo kale arrinta kale oo iPhone-nada kale kaga duwan yahay waxaa ka mid ah sawir markii aad iska qaadideedna hareerahaaga ama gadaashaada ay yaalaan, yacni wax aadan rabin oo aad doonaysid inaad iska jartid, tusaale qof ka dambeeya ama wax meel kale yaala, si automatic ah ayaad remove u dhahaysaa. awal waxa la adeegsan jiray application iyo editing kale iyo hawlo badan ayaa la mari jiray, laakiin iPhone 16 Pro Max iOS 18 ku shaqeynaya arrintaas aad ayuu u fududeeyay. sidoo kale waxaad awood u leedahay iPhone 16 marka isticmaalaysid in aad application walba oo taleefankaaga kuugu jira aad Face ID ku xiratid. waa application walba oo taleefankaaga kuugu jira. arrinta kale oo cajiibka oo iPhone 16 u wato waxa weeye in lacag markaa diraysid ama adiga lacag lagu soo dirayo in kaliya iPhone-ka aad lacag u diraysid haddii uu ku shaqeynayo iOS 18 kaliya madaxyada ayaad ku saaraysaa, deedna si automatic ay lacagta kaaga baxaysaa ama lacagtii kuugu soo galaysaa halkii awal yacni QR code iyo wax la qori jiray waxyaalo saas oo kale ay ahayd. dhanka price-ka qiimaha markii loo yimaado afartan iPhone qiimayaashoodu wuxuu ka bilaabanayaa 799, yacni waa 800 ilaa iyo 1200 oo dollar weeye. goormo ayay marka suuqyada caalamka soo galayaan iPhone-nadan? sida aan la socono shirkaddu markay saas u soo bandhigto iPhone-ka caawa kale isla markiiba suuqyada ma yaalaan. suuqyada waxaa loo soo fasaxayaa 20 September bishan aan ku jirno, yacni adigu waa 10 beri adigu ama 11 beri kadib. dadka dhaliila shirkadda Apple ayaa waxay leeyihiin Apple sanad walba isla iPhone-ka ayay noo soo celinaysaa iyo lambar un bay noogu daraysaa kaliya 13, 14, 15, 16. wax yacni isbedel uguma jirno. dadkaas waa dadka inta badan kor ka fiiriya taleefanka iPhone-ka ah, yacni kaamirada ma la weyneeyo ma la yareeyo, kor ma loo qaaday hoos ma loo qaaday. laakiin Apple iyadu waxay ku doodaysaa war annagu gudaha iyo programyada iyo systemka ayaan aad u update gareynaynaa oo aad u qurxinaynaa korka taleefanka waxba ha fiirinina. laba su'aalood oo ka kooban. adigu taleefanka wadatid hadda iPhone ma yahay mise waa taleefan kale? tan kale diyaar ma u tahay iPhone 16 inaad iibsatid 20 bisha markii uu soo baxo?